Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka Ciraaq Fuaad Macsuum ayaa waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka u fadhin doona Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wadanka Ciraaq Khadiijo al-Maqsuumi. Wana safiirkii ugu horeysay muddo dhowr iyo 20 sano oo waraaqaha aqoonsiga laga gudoomo waxayna bedeli doontaa safiirka ugu dambeeyay dalka Soomaaliya u fadhiyay wadanka Ciraaq. Safiirkan cusub ee wadanka Soomaaliya iyo qaar kamid ah howlwadeennada safaaradda ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha wadanka Ciraaq Fuaad Macsuum. kulankaas ayaa ah mid si weyn loogu soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya ee wadanka Ciraaq waxaana safiirkii madaxweynuhu ay yeesheen kulan soconaya muddo saacada kaasoo lagaga hadlayay xiriirka labada wadan ee wadamada Ciraaq iyo Soomaaliya oo ahaa mid soo jireen oo u dhaxeeyay labada dal isla markaana ahaa mid iskaashi iyo wax wada qabsi ahaa. sidoo kale kulanka ayaa lagaga hadlay xaaladaha ay ku sugan yihiin labada wadan wadamada Soomaaliya iyo Ciraaq iyo sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ka taagan labada wadan iyo caalamkaba intiisa kale. safiirka Soomaaliya u fadhin doona wadanka Ciraaq Khadiijo al-Maqsuumi ayaa ku dheeraatay dhibaatooyinka baahsan ee ka taagan wadanka Soomaaliya. waxay sheegtay in dawladda dalka Soomaaliya ee hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ku guuleysatay sidii dib loogu soo celin lahaa nabadgelyada deegaanada gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. madaxweyne Fuaad Macsuum oo kulanka ka hadlay ayaa isaguna sheegay in wadanka Ciraaq uu doonayo inuu garab istaago walaalahooda Soomaaliya si ay ugu guuleystaan buu yiri nabadgelyo buuxda oo helaan guud ahaan dadka Soomaaliya. madaxweyne Fuaad Macsuum ayaa safiirka cusub ee dalka Soomaaliya Khadiijo al-Maqsuumi u rajeeyay hawl wanaagsan iyo waxqabad heer sare ah una sheegay in dalkiisu Ciraaq uu garab taagan yahay dalka Soomaaliya. koorintii aysan safiiradu la kulmin madaxweynaha wadanka Ciraaq waxay sidoo kale kulamo la soo yeelatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dalka Ciraaq oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaas Ibrahim al-Jacfari. Maxamed Saciid Saxaaf, Universal TV, London.